بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. marka u horeysa waxaan salaamayaa dhammaan taageerayaasha ururka aara ee jooga adduunyada oo dhan ama dadka reer awdal dhammaantii meel kastaba ha jooga iyo salaamaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaadka waxaan idinku bishaaraynayaa shirqool foolxun oo lanoo ku talagalay shalay in lanagu waxyeeleeyo alxamdulilaahi waanu ka badbaadnay aad iyo aad baanu ka badbaadnay ilaahay baana nala jiray shirqoolladuna meeshii ama nololi ka jirto ama siyaasadi ka jirto ama tala la isku hayaa ka jirto bay dee ka dhacaan in laga badbaado laga tashado laga digtoonaado unbaa muhiima waanu ka badbaadnay sidaa ogaada haddaad warwarshan laynaga dhexiyey xalay ka baxa maanta farxad ku beddesha marka labaad anigu waxaan ahay afhayeem waxaan ahay samaroon baan ahay codka dadka samaroon shacabka samaroon ama shacabka reer awdal ama shacbada dulman ee soomaalidaan ku hadlaa runtii ma ihi dagaal ooge ka shaqeeya dagaaluun waxaan ka shaqeeyaa nabadda oo suldaan baan ahay nabadda ayaan ka shaqeeyaa waxaa dhacda si nabad loo helo inuu dagaal iman karo adduunka si nabad loo helo ayaa loo dagaalamaa way dhacdaa shacabka reer awdaleen afkiisa ku hadlo xilli adag buu ku jiraa maanta oo xilli lagu tumanayuu ku jiraa wuxuu ku jiraa xilli aad iyo aad loo waxyeeleynayo ku jiraa xilli sidii furaashada inta la dhigto kubadna lagu dul ciyaarayo ayuu ku jiraa adduunyaduna ay arkaysaa adduunyadiina jawaab degdega weli kama hayno waxaan adduunyada caalamka u sheegayaa inuu shacabkaasi gurmad u baahan yahay muddo dheerna u baahnaa oo 25 sano ka badanbana u baahnaa gaar ahaan dawladda sharafta leh ee federaalka Ethiopia oo xuduud dheer aanu leenahay jaar wadaagna aanu nahay nabadgelyada ka shaqaynteeda afrikana ku caan baxday gurmad baanu ka doonaynaa xil baa inaga saaran shacabka walaalihiina ee lagu tumanaya magaalooyinka xuduudda ku yaala intaa adduunkaan u sheegayaa oo ta kale anigu waxaan ahay suldaan baan ahay suldaan la doortay dadka ugu badani doortay baan ahay rikoorka ugu badan ee lagu doorto salaadiinta soomaaliyeedna waan haystaa iyo ugaasyadaba xagga iyaga waxaa lagu eegaa imsaa xoolo lagu qalay awr lagu qalay casuumad lagu qalay rikoor badan baan haystaa nin igu dhadhowey ma jirto taas maadaama aan suldaan ahay waxaan taa uga jeedaa dhinaca Ethiopia oo xuduudda qarka Ethiopia ka xigta dadkayga ugu badan ay doortay baa yaalla waanan joogi karaa cid igu qabsan karta inaan ka tegaana waa cid gardaran weeyaan amar qaldan oo dawlad weynta Ethiopia aan ka soo fulin ayaa shalay qayb ka soo fulay waanu qaadanay amarkii xuduudana waanu dhaafno qaybta kale ee laga doortayna waan tagay alxamdulillah maalintan doonana waa ku noqon karaa Ethiopia sida awgeed nimankii moodayay inaan ka maqnaan doono Ethiopia ma laga kaxayn karo way arki doonaan anuu jooga shacbigana waanu sheegayaa haddaan magaalooyinka Ethiopia deganahayna ilaa Addis-Ababa mari karaa deganaan karaa dadkaygu degan yahay qorya ma sito wax kuma laayo af shacabkayga ubaan afhayeenu ahay iyagaana kacdoon ku jira kana dagaalamaya dhulka qaarkii lagaga gardaraya xaqna way u leeyihiin adduunyadoo dhan waanu sheegaya sidaa awgeed baan xaq u leeyahay Ethiopia inaan meel kasta ka deganaan karo taasina waa taas qodobka kale ninka la odhan jiray maxaan la yidhaahdo ama la odhan jiray Rabax waxaa nin beri hawlaha ka yar maqnaa hawl adagna ku jiray yaa gabay u lahaa waxay ku jirtay ayaa kelmado gabay u lahaa ku jiray ayaan maanta leeyahay Rabax wuxuu ku dhaantaynayaa ama Rabax wuxuu ku dhaantayni jiray dhimay wadaadkii dhulkaasee waan ka soo fooci jiray dhowrnoo maqan gabay la yaqaano gabaygaasi halkuu ka dhacayo sidoo ahaa weeyi tii oo kalean maanta u sheegayaa suldaan wabar waxba kama jiraan waanu ka takhalusnay waanu dilay waan baabi'inay shacbi weynahaygaan anigu dhex joogaa booramaan goortaan doono iman karaa
rabaax ninka la odhan jiray ama la yidhaahdo waxaan u sheegayaa badho saabkii kale ka horreeyey magaalada boorama nin xishooda buu ahaa si fiican oo nadiifa u taliya intuu qaban karayo talada ayuu ahaa nin ilbaxa buu ahaa qurba joogna ah buu ahaa si fool xun ayuu rabaax u taliyey muddo dheerna waa laga xishoonayey annakaa dadkana ka sasabi jiray bulshada reer awdalla foolxumada uu ku shaqeeyay ka sasabi jiray aada ugu sii talax tegi maayo halkaa foolxumadii uu ka shaqaynayey iyo dagaal oogihii uu ahaa ayaa dabadeetana keentay in shacbigu agshanna ay ka qaadaan shacbi gaajoonayo xilli adag ku jira ayaa la keenay kooxihii 6 gobol laga keenay oo Soomaaliyeed oo la yidhi ku dul ciyaara shacbigani ma shaqeeyo dhalinyartiisu ma shaqayso wada bilaa camal 100% haddana waxaa la yidhi lacagtii tigidhada lagu goynayay qoladii Hargeysa ka timid bay goynaysa baa la yidhi xaq uma lihidina in lagala hoydo xoogaygooda halkaana lagu farmariyaa la doonayay gardarooyinka noocaasi sida xun ee foosha xun u talinayay ayay waxyeelooyinka ay kaga soo gaadheen baan odhan karaa xishoodkii madaxda loo hayn jirayna uu dhammaaday maadaama si fool xun oo aada u liidata markaasi u taliyey qodobka kale waxa weeyaan dadka la xidhxidhay ee reer boorama ama reer awdal gardaraa lagu xidhxidhay oona lagu tacadiyey dad guryahoodii jooga weeyi ururka aara la yidhaahdo ee u dagaalama xuquuqdiisana maaha waa shacab weey nin dembi gaara lagu hayana dadkaa ma jiro hayb awgeed baa dadkaa loo soo urursaday jeelashana loogu taxaabay waayo waxay usii dhow yihiin amaasiyaba in daacad u yihiin laga yaabaa suldaanka la yidhaha suldaan wabar dadkaa lama sii haysan karo farsamo kastoo lagu soo dayn karana annakaa yeelayna hadduu iyaga wargaadho jeelasha ku jirtiinna ku bishaaraysta inaan la idin sii hayn karin ee la idinka dambeeyo qaab siyaasadeed iyo qaab kaloo adduunyada adeegsatoo dhan baan ku soo dayn karro haddii alla yidhaahdo waxaanan adduunka u sheegaynaa inay dadkaa ka soo daayaan waayeel iyo yaryar iyo ku xanuunsan iyo ku kastaba le jeelashana laguma daweeyo oo loo diidaa daawada sida aan ognahay in dadka adduunyadu ka howlgasho lanoo soo daayo weliba shacabka ururka SNM uu ka soo jeedo badankiisuna inay dadkaa ka howlgalaan sidii loo soo dayn lahaa si aanan xumaanta shacabku inoogu sii ballaadhanin oo muddo dheer inoogu sii faafin dagaaladii sokeeyana inoogu soo noqonin ayaan codsanayaa in aan la soo daayo dadka gardarooyinka lagu xidhxidhay qodobka kale ciidamada aara ciidamo aada u habaysan weeye ciidamo aada u tababaran weeye ciidamo maxaan ku idhaahdaa muddo dheer loo sheegayay inay samraan oo laga hor joogay inay dhulkooda ka saaraan cadowga weeye awood bay u leeyihiin inay maalintay doolaan iyo habeenkay doolanba soo galaan haddaba inamada Soomaaliyeed ee ay ku jiraan kuwa reer awdalihina militariga qoriga sida war anigu waxaan ogahay lacagtaa qaadataan way yar tahay mar horena waa sheegaa lacag ma qaadatiin waxyaaba muhmala dagaaladii hore ee sokoye aan la isugu dhiman jiray annagu markaan yaryarayn kuwii dhacayay muhmal iminka dagaalkani kuma jiro adduunyada inay tidhi Soomaali hay istayso reer waliba wadankii qaybta gobolkiisa ha tago iyo degmooyinkiisa la yidhi oo sidaana rabshadaha adduunka uga daayay baad ogtihiin waxaa kaloo ogtihiin oo waaqicigu idin sheegaya lacag $70 aad qaadataan bal fikira ciidamadaas oo $70 baad qaadataan $70 waxay yihiin wad garanaysaan reerihiin baa ka soo maqan tihiin lafihiina cidla u joogtaan duur u joogtaan dhaxan u joogtaan inaad ku sii dhimatiinna dad kale oo xaq u dirira walaalihiina ay ididilaan ama adishaan waa gardarro weey ciidamada waxa leeyahay Soomaaliyeed hadday beesha dhexe saaq la yiraahdo tahay beelaha kale ka shisheeye ee Soomaaliyeed hadday tahay kuwa gada buursiga ee la shaqaysta hadday tahay fikira baan idin leeyahay ka dhaqaaqa nin walba gobolkaaga tag kii ciidan ahaan u joogaya oo kuwa gobolkan u dhashay iskala joogayina wuu joogi karaa ciidankii $70 ka badan baa annaga siinay haddii isagoo dagaalamaya la qabto wuxuu bixinay waxa la yiraahdaa barayska ayuu bixin doonaa khasaarahana isaga isu geystay Allahumma ballaqtu baan leenahay kuwa reer awdal ee ku jira $70 ku shaqeeya
inaan gumaydatiin baan ilaahay inaan gumaydo yaa tihiin doonaya inaan gumaydno weligood ku noolaadaan soo wareega ama maalinta aanu soo galna boorama in xabad riday yaan laynagu arkin xagga iyaga ka safta mushaahar ka badan ayaan inagu siinaynaa halka aad joogtaan waayo mushaahar ma qaadataan kuwa aan u naxayna baa tihiin anigu aan nolol u raadinaya baa tihiin in dawladnimo wanaagsan u raadinayno oo aanay wasiirada guryahay doonaan iska dhisanin iyo saraakiishu guryahay doonaan ayna dhisanin qasriyo iyagu duurka ku gaajoonay u fiirsada maxaad ku haysiin ciidamnimadiina ood ka faa'iidaysaan marka loo eego shakhsiyadiina iyo qoyskiina maxaad ugu dhimanaysid duurka halkaad doontaan ciidan ka noqda anuu waxaan idiin sheegayaa ka isaaq u dhashay inaanu ciidan ka ahaan karo gobolka awdal soomaalidu ma kala tegi doonta iyo geeska afrikaba kuwa kalena ay ka noqon karaan shaqada ay shaqeeyaanna ay ka sii shaqayn doonaan keliya haatan maalintaan amarku isbedelo eenu dhulkayaga soo gallo magaalooyinka yaga waanu joognaa dhulkayaanu dibadda ka joogna aanu soo gallo inaad amar ka qaadataan baan idin faraynaa haddii kale maxkamad iyo ganaaxyo aad la kulmi doontaan waxaan idinku adkaynayaa hadalka qoladii dhulkeeda u dagaalamaysaba way ka xoog badan tahay dadka ku soo duulay had iyo jeer waad ogtihiin qoladaa la yidhaahdo snamtu ha naga urursadaan madaxdooda maamuladooda ha naga urursadaan ciidanka iyaga u daacadda ahna ee nolol xumada ku noolla ha urursadaan sida ugu degdegsan ha nooga baxaan dhulka iyaga ayaa loo leedahaa qodobka kale aan ku darayaa waxa weeye cidda u dhalatay gobolka awdal ee hadda ka bacdi lagu ogaado inay la shaqaynayso ama garab siinayso cadowga qolo lamida oo ku soo duushay oo dhaqaalaheeda iyo nolosheeda guranaysa inay gacan siinayso ay kuwo kale oo walaalahoodiina la halgamayaan maanta laga bilaabo maxkamad buu mari doonaa aad iyo aad u adag buu mari doonaa heerasha ugu adag ee bini'aadanka lagu xukumana wuu la kulmi doonaa nuucuu dooniba taageeradaasi ha u ekaato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu